مرحومة سعادة علي ورسمة قارهان فنانينتي يقودهان أمد الصومالي دون انت اسكدب والله لقال اللي بانك تضوضا مشان كينين أمقاسين taasi waxaan aaminsanahay inay hakin doonin howlaheena oo qaranka noo idmadeen taas hadduu hal naga soo harayna shaqadeena aan wadan doono ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa cadowga soo bareeray inay iska dhixiyaan wax si kasta isaga dhixin kara isaga dhixiyaan qof Sooman oo 10kii soonka Ramadaanka lagu jiro oo ummadii qof Sooman daadinaya ay diin hada ma qandiintayta marka taas waxaan aaminsanahay in tii ilaahayna ugu dhiman tahay tii adduunyada mataqaana aan ka codsanayna ciidamada amniga inay ku soo gacan dhigaan dhiigwadayaashaas oo cadaalad ay keenaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiwali Sheekh Axmed oo sheegay in qof muhiim ah ay ka baxday ayaa tacsi u diray ehelada iyo qoyska ay ka geeriyootay xildhibaanad Saada Cali Warsame isagoo oo sheegay in ay qaadi doonaan tallaabooyin walba oo lagu tirtirayo cadawga sida uu yiri dilka dhacayna aan u hakin doonin qorshaha lagu soo celinayo amniga dalka waxaan tacsi u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed dalka iyo dibadiisaba geeridii ku timid waxaan leeyahay samir iyo iimaan dhammaanteen Allah naga siiyo xilwaanada ayadana naxariistii janno Allah ka waraabiyo jannatul firdawsa Allah ka waraabiyo waa qof wadaniyada waa qof ayadoo dalkeedii u shaqaynaysa oo u timid inay gudato waajibaadkeeda qaran ee loo igmaday xildhibaan ahaan cadowgu ku weeraray cadowgaasoo ah runtii cadow ummadda Soomaaliyeed dhimashada iyo dilka la dilay Saada Cali Warsame waxayna xusuusinaysaa mar labaad dagaalka xun ee la kula jiro ee cadowga ummadda Soomaaliyeed nugula jiro dagaalkaas oo ay doonayaan inay ku hakiyaan oo ku joojiyaan halganka ummadda Soomaaliyeed ay ugu jirto inay dib ula soo noqoto qarannimadeedii iyo midnimadeedii iyo dawladnimadeedii ay ula soo noqoto naga xukuumad ahaan iyo baarlamaan ahaan sida gudoomiyuhu sheegay arintaas nama joojinayso dagaalkaas waan wadaynaa halgankaas waan wadaynaa waana iska caabinaynaa cadowgaas ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay dagaal u istaagto abwaan maxamuud cabdulaahi sangub oo kamid ahaa xubnihii goobta ka hadlay ayaa Saada ku sifeeyay qof ku weyneed wadaniyada in badan ay xasuusnaan doonaan isagoo ilmeynaya adoon karaamale bay naga dhintay karaamadiisu ay Soomaalida waxa ay ugu daran xalay kulkii akhriyeysay khudbadii ugu dambeysay ee akhriyeysay baarlamaanka ayaan aad iyo aad ku dhaartay inaan wadankayga u shaqeynayo wadankayga u dhaartay waxaan leeyahay سيبا عنه أبهد وانا دالين أون مارتي waxaan maanta ka helay geerideeda qofta maana kan maxay wax kasta tay dhacaan meeshii bay bogsatay matalan dadka ku nici jiray si aan uga dambeeyay wallahi karan maayo way igama go'ayso ma samayn karayo waxba ma samayn karayo ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay Ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo iyadana Ilaahay qabriga ha waasicay Ilaahay waxaan uga baryeynaa in Ilaahay jannadii geeyo jannadii in Ilaahay geeyo ka baryo iyadii wiilkaba wiilkii iyadaba lamaanaha maanta meesha ku dhintay walaalaha maartay aanu soo kicin xumo Ilaahay waxaan ka baryeynaa labadooda Ilaahay inuu samiriyo iimaan naga siiyo Ilaahay samiriyo iimaan naga siiyo waa mahadsantihiin aad iyo aad wax badan ma xamili karo aad baad u mahadsantihiin